يا جعلنا وقوم هذا اليوم وزيرك الرماها الدبدة الصومالية مدن عبد السلام عمر خدلية الكاسوانية بحنيوت أو جيسي أو صومالي لكن أصلاً يدد كلام الظروف أيام ماشي لكتي لا حوالي ما ماشي استقتال الوقلة هل نن أو صومالي وسياسي وكل عمجر إنه يراد سدا أو جاب دعوة ندربان هراي وقليبي وكيرين يديدوا وامل على كيجا نور وحدي أنا سؤال نقول الله يكون غدير سؤال شكلهم وزير كويدية وحكم الهيد إن أنكو كلولي ورئيس يكوساب سنة أرنتا إن أيسن صومالي إن إسكت شتو مرنبا taladooda iyo go'aankooda aysan u daba fariisanin arrin sabab anaga arrin sababna laga xukumo magaala madaxdeedina ma ahan inta daba dhilifka oo dhibaatada wada oo u sacabinaysa oo ayagu danta gaarka leh danta gaarka leh hadalkan si fiican u dhegeyso Soomaali uma danaynayaan xataa qoyska yar ay ka dhasheen uma danaynayaan maalin walba arrin sabab looga yeeraa قارن لو يرين بعد سكتة اسك حاضرة ويسكتة جيان عدو ما يرمين مركزات جبر ير أو حبا أنا هين بالي هذا كان نفطا ير قابل حلو مركز صار نقدان محين نقول هذا التوب بيان تقني لو رد الجار كان ولا راح نهاي أدبن لوسو دوي قبل كان هرمر بوجاري what the hell is that what language بتقول ليس أنا قررت waxaan ii suurto gashay inaan ka wargeliyay shirkii koowaad ee London ka dhacay sanadii 2012 iminkana iyo kii 13 waxaan la kulmay dad fara badan oo madax ah Soomaaliya oo siyaasiyiin dadka markaad wareysatid shakhsi ku dhacay ma jiro inuu yiraahdo ciidda iyo calanka anaga iskala mana yeelayna arrintan كل waxay diyaar u yihiin inay wada sacabiyaan kaamarada markaa dimisay laakiin waxay ku sheegayaan qaarkood dhulkeeni iyo calankeeni iyo ciideeni waa la haystaa bal isweydii maxay ku dhacday in Garowe iyo Xamar iyo Hargeysa looga dabaaldego maalinta qowmiyadaha Itoobiya ubadkeenina ay laynayaan habeen iyo maalin heer xataa arrimaha dibadda Soomaaliya loo kuma lahan arrimaha gudaha Soomaaliya ay Itoobiya qayb ka tahay waa laga tashanaya loo yeeray alin David waxaan la kulmay mas'uul Ingiriis ah waxaan ku eray maalin walba waxaad dunida tagtaan oo dunida waxa ka tiraadaan xuquuqda insaanka hal waardiyo waxaad natiin dawladda ugu badan ee lacagta ugu badan ee aidka la yiraahdo siisa ama taakulaynta dhaqaale Itoobiya maalin walbana Itoobiya waxay baabi'inaysaa dadkeeni iyo dalkeeni xuquuq insaanka ay ku tumanaysaa goormaad ku dhaqmaysaan idinku waxa dadka u sheegaysaan oo Itoobiya joojinaysaan waxaan idin sheegayaa insha Allah taala inuu jiro dhaqdhaqaaq xoog badan oo Soomaaliyeysan oo arkaya dhibaatada dadkeena iyo dalkeena haysata oo daayar u badan mustaqbalka ummadda Soomaaliyeedna waa mid cad oo nadiif ah oo bright ah haddii si kale aan u iraahdo mustaqbalka dhalinyarada iska leh marka dadkeena iyo dalkeena waa inaanan marnaba aanan cidna u daba fariisanin xaqadu sidaa weeye anagu cidna dulmin mayno cid aan dulminayna ma jirno cid aan dagaal ku nahay ma jirto cid aan juulaan ku nahay ma jirto ciideena iyo calankeena kaliya loo dahay anaga isku firan we don't need aid from America we don't need aid from Ingiriiska we don't need aid from anybody else ciidamada Ethiopia waxay tababarayaan askarta Soomaaliya waa the biggest insult in the world waa ceebta iyo fadeexada ugu weyn ee bilaadan soo martay nimankii caruurteena laayay ku tababaraya sirtaadii way ogyihiin ciidankaagii way ogyihiin xaaladaadii ogyihiin awooddaadii ogyihiin tababarkaad histay ogyihiin what is wrong with us nimankan meelaha yaacayaan sheegaya sirtaadii baad waxaad u dhiibtay ciid adduunka ma jirto Ingiriiska iyo Ruushka Mareykanka iyo Ruushka waxay isku haystaan sirtoodana la kala ogaanin ciidankeena waa Itoobiya tababaraysa
weydiiye nimanka adeerada noo ah oo ordo maamul goboleedyada iyo dowladaha haysta weydiiye Soomaaliya isfasaha soo ma garanay calan ciidankeeni Ethiopia tababaraysa kuwa kale waxa la yiri Uganda lagu soo tababaray soo ma garanay marka if I talk about this we all gonna get the car sidaas awgeed insha Allah ta'ala waxaan jeclaa inaan soo gunaanado muhiimadu waa simple si kasta oo ay arrintu u qalafsan tahayba Soomaaliya ha oga baqanin iyo dadka Soomaaliyeed ajnabi dibadda ka yimaada hadalkan iga qora Soomaaliya ajnabi dibadda ka yimaada ha oga baqanin Soomaaliya waxaad oga baqataa mid ku eg kugu dhaqana kugu qabiil ah kugu calan ah kugu cod ah kugu magac ah oo magaciisa la yiraahdo ina faatahu ruusa iyo ina sarayaamo cuna iyo tuuryaro bidaay